waxaan u qaatay dhanka iyo lower option ayaa u qaatay. haddii aan eregno halkan from here ilaa iyo halkan Fibonacci toolkeena 50% waa halkan waaye. So waxaan rajeynaynaa in marka salaries badan ay halkan soo galaan, maxaa yeele suuqu wuxuu ahaa downtrend asagoo ahaa wuxuu sameeyey expansion xoogan. Expansionka xoogan markuu soo dhaco kadib waxaa sameysay suuqa market structure oo high ah, laakiin halkan 50%-ga ah waxaan rajeynayaa in xoogo salaries ay kasoo gali doonaan halkan. sidaas ayaana trade-ka ugu qaatay. saa ujeedaan halkan waa 5 minute waaye. soo markaa waxaan rajeynaynaa in ay daqiiqadaha soo socda ay soo galaan salaries aada u xoogan, laakiin halkan sidaa ujeedno waxaan filayaa in ay buyerska hadda ay damcayaan inay tagaan halkan order blockan. Okay, 1 minute ayaa noo haray. saa ujeedaa salaries ayaa soo galaya suuqa. muhiimadda okay, salarieskan halkan ayay ku joogsadeen. I think kan inuu pressureka lasoo saari doono oo uu hoos u soo aadi doono ayaan rajeynaynaa, waana candlekii u dambeeyey. Okay. Okay, suuqa liquidity maadaama kor uu yahay, sidoo kale intoodna order blockna kor uu yahay, that is why ayaa loo jabsaday 50%-gan. so waa ku fududaana trade-kan, laakiin dhib malahan. gadaal dambe ayaan arrin sida idinkaga tusi doonaa insha allah oo aan ku loos garaynay. mar walba qaladkaaga inaad qiratid ayaa fiican, ma ahan maalin kasta inaad win aad haynayso. Okay, I think trade-kan waan khasaarnay, laakiin dhib malahan. cashir ayaan ka baranayna. cashirkaan ka baranayna muxuu yahay? haddii aan aragno these two candles aadka u yaryar waa continuation candle. mar walba waa inaad meel ku qorataa waa continuation candles. bawfo haddii ay isticmaalaysid oo liquidity-gana uu up u yahay, sidoo kale intood order blockna uu kaa sarreeyo up u yahay, voidkan ma la xushmeynayo because of these two red candles. haddii labadan candle ay ahaan lahayn double momentum, ama double momentum waxaa la laba candle oo aada u waaweyn, ama midka kuwaad uu weyn yahay midka kalena uu yar yahay, waxaan u qaadan lahaa sell 99.9% waxay ahaan lahayd win ayay ahaan lahayd. waa fahanteen aan filaa. laakiin hadda these two confirmations are weak, so that is why markaan u khasaarnay. insha allah mar dambe ma dhacayso. so you have to know the reason why you are losing and the reason why you are winning. sidaas ayaan u khasaarnay, laakiin insha allah ma dhacayso mar kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. saa ujeedo halkan waa very weak candle, sidoo kale intoodna very weak candles waaye. so waxaa idin rajeynaa horumar iyo baraari. janaalka subscribe saar, muuqaalkan la garay waa inoo muuqaal kale insha allah.